kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkan kusoo qaadanayno ama reaction aynu ka bixinayno dhacdo bishan horaanteedii ama bishii hore ka dhacday dalweynaha Mareykanka gaar ahaan gobolka California. dhacdadani oo noqotay dhacdo la yaab leh isla markaana si weyn loogu faraqeeyay baraha bulshada ee caalamiga dhiiranaanta wiilka yar ee 16 jirka ah oo muddo saacad ku dhow ku dadaalayay sidoo uu samata bixin lahaa wiilka yar ee 10 jirka ah ee lagu magacaabo Ray kaasi oo markii dambe ay ugu yimaadeen rag badan oo ciidamada ilaalada ama badbaadiyaasha xeebaha ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilay Ryder Williams oo ah badbaadiye loo aqoonsaday geesi iyo Nathan Ray oo 10 jir ah waxaanu ku amaanay Williams oo badbaadiye Ray xilli uu ku sigtay inuu ku qarqoomo xeeb ku taal Santa Cruz bishii hore. It's an honor to be with Ryder Williams, who is a 16-year-old lifeguard, California, the Santa Cruz area, and he saved this young gentleman who I had a long talk with. I said, "Would you have made it without him?" And you said, "Not really, right?" So you're going to have a long and beautiful life. This is very exciting to me. So, you know, it's so exciting to see something like this happen. He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I'd do it. I wouldn't probably. waa geesi dhab ah ayuu yiri Donald Trump. hadalka saameyntan leh ayaa noqday inuu Donald Trump ku kaftamay aniga nasiib ayaad ku leedahay inaanan anigu shaqada maalintaasi ku jirin. isagoo la hadlaya wariyaasha Williams waxa uu sheegay inuu ku tiirsanaaday tababarkiisa diiradana saaray sidii uu wiilka biyaha uga soo saari lahaa sida ugu dhaqsaha badan. intii ay dhacdadani socotay isagoo raaciyay waxaan rajaynayaa in waxa dadka oo dhamay ay tan ka baran karaan ay tahay inay isku dayaan inay dad ka caawiyaan. sida ay sheegayaan mas'uuliyiintu hawlgalkan badbaadinta ah waxa uu ka mid ahaa 34 hawlgal oo ay sameeyeen badbaadiyaasha degmada Santa Cruz dhamaadkii toddobaadkaasi maadaama oo qaab dhismeedka xeebta uu sababay qulqullo biyo oo aad u xooggan waxa loo yaqaan rip current kuwaas oo qaadi kara xitaa dadka ku dhex jira biyaha gamceedka ay ku dabaalanayeen.